Ruby ugu dambeyn waxay garowsatay inay ayaduna leedahay karti iyo sifooyin wanaagsan oo u gaar ah. Ruby iyo Mylis waxay wada bilaabeen inay heesaan, laakiin Ruby aad bay u xishoonaysay mana awoodin inay indhaha ku eegto. Markay bilaawayeen inay ku raaxaystaan heesta, waxaa hakiyay dhawaaqyo yaab leh. Dhawaaqyadu waxay ka imaanayeen waalidkeed oo qolka xiga joogay. Ruby way orday waxayna shidaa u dimisaan halkaas ay u joojiso. Waalidkeed way joojiyeen sababtoo ah ma ogeyn in Ruby iyo Mylis ay guriga joogeen. Ruby aad bay ugu xishootay laakiin waalidkeed wax ceeb ah ma dareemayaan. Halkii ay ka xishoon lahaayeenna waxay bilaabeen inay dhalay aabaheed. Ruby si degdeg ay Mylis uga saartay guriga. Ayadoo xanaaqsan ay Mylis ku tiraahday waan ku necbahay. Ruby way iska indhitirtay Mylis. Ruby nolosheedu aad bay u mashquulsan tahay ayadoo dheelitiraysa dugsiga iyo waajibaadka qoyska. Maalin maalmaha kamid ah dawladdu waxay amartay in doomaha lagu rakibo qalab lagu kormeero kalluumaysiga sharci darrada ah. Qarashkana kalluumaysatada ayaa bixinaya. Aabaha Ruby aad buu u xanaaqay wuxuuna Ruby ka codsaday inay u turjunto. Isagoo ka daalay dulmiga suuqa, wuxuu go'aansaday inuu kalluunka isaga si toos ah u iibiyo. Kalluumaystayaal badan ayaa ayaguna dareemay in la qiyaameeyay, waxayna taageereen aabaha Ruby. Waxayna go'aansadeen inay bilaabaan ganacsi u gaar ah. Waxay kireysteen baqaar waxayna si wadajir ah u iibiyeen kalluunka ayagoo aan adeegsanaynin dhexdhexaadiyayaal. Wixii markaas ka dambeysay shaqada Ruby aad bay u badatay. Caawinta qoyskeeda awgeed, Ruby mar walba way ka daahdaa fasalka macallin daahida. Isla maalintaas Mylis mar kale ayuu la kulmay Ruby. Mylis si daacad ayuu raaligelin ugu bixiyay laakiin Ruby weli ma cafin. Ruby waxay ku mashquulsan tahay dhibaatooyin badan, mana haysato waqti ay isaga siiso. Maalin ayada u degdegto qoyskeeda laakiin maskaxdeedu meel kale ay ugu maqan tahay. Ruby waxay fariin u dirtay macallinkeeda oo u sheegtay inay soo daahayso, laakiin markaan aad buu u xanaaqay. Markii wareysigu dhamaaday, Ruby waxay u orday guriga macallinkeeda laakiin wuu baxay. Kadib waxay u orday dugsiga waxayna ugu dambeyn ka heshay qolka muusiga. Macallinku inuu isku dayo inuu iga sheekeeyo guuldaro. hadaladiisu waxay Ruby u noqdeen baraarujin. Waa run in qoyskeedu xanibeen, laakiin maadaama ay sidaas ku kortay, weligeed iskama dayin inay nafteeda wax u qabato ama samayso wax ay jeceshahay. Weligeedna ma helin geesnimada ay ugu sheegto waxa ay rabto. Hadaladiisii adkaa ayada. Aabaheed kama soo horjeedo inay jaamacad aado, laakiin hooyadeed cabasho badan ayay qabtaa. Waxayna leedahay ma sii deyn karo ayada. Iskuulka muusiga lagu baranayna way u diidan tahay. سادرتد waxay sheegaysaa inay tahay cunug yar. Nolosheeda oo dhan waxa ay ahayd shaqo aan dhamaad lahayn. Aad bayna u daashay. Habeenkaas Mylis wuxuu u diray fariin raaligelin ah, isagoo rajaynaya inuu qaladkiisa saxo. Ugu dambeynna way ogolaatay. Subaxdii xigtay ayada badda lama aadin qoyskeeda, balse sikadiisa isla maalintaas kormeer ayaa fuulay doontooda. Kormeeruhu ma oga inay dhagooli yihiin. Waxay weydiisay su'aalo badan laakiin kama jawaabin. Waxayna garatay inay wax qaldan jiraan. Markay ogaatay inay dhagooli yihiin ayay si qarsoodi ah u wacday ilaalada xeebaha. Ilaalada xeebahana waxayna u ahayd maalin naadir ah oo ay nasasho heshay. Laakiin markii habeenkii guriga timid, waxay qoyskeeda ku aragtay murugo iyo quus. Warbixintii kormeeraha darteed, ruqsadii kalluumaysigooda waa laga laalay. Mar dambena looma ogolaan inay kalluumaystaan. Wax walbana waxay dusha ka saareen Ruby. Aabaheed wuxuu aaminsan yahay in arrintan dhacday sababteedu tahay Ruby oo meesha ka maqnayd. Waxaana lagu ganaaxay 2500. Dawladdu waxay go'aamisay inay qasab tahay inuu doonta saarnaado. Qof wax maqla si uu uga jawaabo waraadaya haddii ay rabaan inay sii wataan kalluumaysiga. Ma haysaan qofka noocaasi ah.